markaa caana oo ganacsato weyne oo gabadh weyne wiilkii markii wiilkii ay kaxeeyeen wiilkii wuxuu igu soo xiray islaam buu igu soo xiray markaa islaam buu ku yiri gabadha walaashay halkaa joogta islaam wiilkeeda soo kaxaysanaysa markaa هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلاش حدا ما soo socda ku soco wiil yar baa la ii keenay 15 sano markaa jira ama 14 sano qiyaastii waxa la igu wiilka yar hay waxaan rabaa inaan kaxeeyo laakiin inaanan inta u maaragtay ilaa iyo 3-4 sano inta aqligiisu sii fiicnaanayo inaana kaxayn biilkan kugu soo dirayaa walaale wiilka ii hay iskuulka waxbarashada gee wakaas haya marka sheekadaasaan kusoo xasuustay saqir suujiska ku soco wiilkii baan maaragtay aan hayay muddan hayay marka wuu yaraa markii la keenay qaangaarba ma ahayn 14 jir buu ahaa wiilkii baan hayay waxaan ku uri wiilku wuxuu ii noqday sidii wiilkayga oo kale uu ii soo adeegaa uu ii wax walba ii doonaa dukaanku ii sii furaa waxbuu bartaa dugsi markaa wuxuu baranayay secondary buu ku jiray markaas adigu wiilkii markay xaaladiisu halkaa maraso hooyadii wiilka lacagta uma soo dirtay anaa lay soo diraa lacagta maadaama inuu yar yahay oo lacagta ku haya marka gurigana qol buu ka degan yahay qolkaana kira ahaan ayuu degan yahay oo adkaatay wallaahi caadi oo adkaatay free faraxyaasha caawa soo qora caawa waadna kufsateen dumarow ilaa hadda gabar la kufsaday ma jirto anagu ma nala qaniinaya ilaa caawa ku soco marka waxaa dhacday inaan inankii maaragtay ayuu halkii ku koray markuu joogay muddo 5 sano may 4 sano muddo 4 sano markuu joogay ayaa maaragtay inankara intaas la dhar leekisiyo waa korayo kaale arag buu noqday waad korsatay haa waan koriyay intee buu leegyahay waan koriyay hore waan korsaday siday ahaataba Cabdiqaadirow inankii waa weynaaday jaamacad buu bilaabay kaaliska arag buu noqday inankii waa shukaansaday marka waaba ka helayba inankii yaraad korinaysay waad korsatay hay oo soo koriyay haa marka inankii yaraa waan ka helay waxaa ku iraahday ka waran haddaynu isguursano guur waxba kama garanayo nolol waxba kama garanayo cidna lama sheekaysto dukaankaasuu ii fura wuxuu tagaa jaamacadiisu dukaanku ii fura guriga masaajidka waxba ugama dhexeeya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان خلاص رجع وين دمنا حبك ما نقولين مركم ما نقولين إله ما كل أرتي مركم ما نقولين شو عروق لدي لاي rag badan baa la kufsaday xoogi hay marka inankii yaraa waxaa dhacday inankii yaraa wadaad baan guriga ugu yeeray habeen fiida wadaadkii baa noo yimi inankii yaraa adigu igu aqbalay waxaan ku yiri guurka ayaa wuxuu yahay baan ku barayaa guurku muxuu yahay sidan waad fahmaysaa baan ku yiri dadka guursada wad aragtaa magaalo waxaad joogtaa magaalo weyn baad joogtaa maaragtay wuxuu yiri anigu weli gabadh lama sheekaysan guurna maskaxdeeda kuma jiro ina hooyo ka hayso jaamacadeyda aan de maaragtay barta ayaan u baahanahay waxaan ku dhib ma laha inna inoo sheegi maayo sheekh qarsoodiya wakaas adigu waa ku qanciyay wax kasta maskaxdiisa ku shubay waa inay yaraan soo korsaday bay haydo aan dabeecadiisa soo dhan garanaya waayahay buu yiri sheekhi baan keenay sheekhi baa meherkii dhab nagu siiyay inaka yara waa xaraystay qolka uu seexan jiray maaha kii qaniyaa gelisay qolkaas waa ka soo wareejiyay gacanta soo qabatay haa waxaan yidhi kaali guurka wuxuu yahay waan ku barayaa ina mari hooyo waxaa dhacday inaan inankii yaraa gurigii la soo galay inaan guurku wuxuu yahay aan baray aan ku uri markii waagu bariyay aan ku uri ka waran guurka ma macaan yahay guurka nolosha guurka adigu ilamuu hadlin ayaamihii hore oo dhan inankii yar shoog yani shoog bay ku noqotay ayaamihii hore o dhan ilama hadlo
marka aan hawsha samayno wuu cararaa wuxuu tagaa qolkiisa وسحدة haa ويا وعرّا ma garanayo inuu ooyo laakiin wuu seexdaa wuu isdadaa mustiisa hoosta ka galaa adigu markay muddo 15 cisho ay ahayd ayaa maaragtay habeenkii dambe qolkiisii muu aadin habeenka kamad ooyin uu seexday markaa habeenkaas uu seexday wuxuu yidhi halkanan caawa iska joogaya qolkayga ma tegayo haye baan yidhi halkaagan iska seexo waxaan kuuri sidaan u wadnay ayaa maaragtay inanka yaraa uu suuxay markaas dad soo xisa haa uu suuxay sida hiru la dhacaysay haa uu suuxay markuu suuxay markii horta wuxuu igu yidhi waan dawaqayaa markaa biyihii waxbaan usoo qabtay sharaab iyo waxbaan usoo sameeyeyo isagoo taagan buu istaaga ka dhacay istaagii hadduu inankii ka dhacay waan cararay ambalaas baan u yeeray dhakhtarkaan geeyey waxaa laygu yidhi waa loo bibi wiilku loo bibi dhiigaa dhacay haa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marka uu yaraan imse jeer baa hila dhacday in badan haddaan doona waagaan barin jirnay laakiin adigu inanka loo bibi buu noqday adigu adigoo tababarnayda isaga tababarba maa siinba isaga tababar siiyay waa kan qolkiisa yaraa uu tegi jiray iska daayay isagaa iskugu fiican isagaa iskugu wacan qolkiisa yaraa fid hore buu ku xaroon jiray uu carari jiray uu iska daayay hawshii sidii ugu wadnay anigu dee madhalays baan markaa ahayo dee waa ogayn aanan dhalayn ayaan xanuustay uur igu soo baxa uurkii horta markaan yeeshay farxaddii adduunka ayaan qaado isaga umaa sheegay maxaan siri uurka inan yar weeye dhoof sugaya jaamacad dhigta uu ka naxaya ha u sheegin ilmahaagu ha kuu yar adkaado ha soo yar weynaado uurkii baan ka qariyey aabbahay baan la hadlay aabbow maaragtay nin baan guursaday uurna waan leeyahay ilaahay wax makaa siiya haa waa kuu soo ducaynaya ilaahay wax khayr qabaa kaa siiya ha iska sii daynin 5 nin horena kaamay soo dhalin igamay soo dhalin maba dhalin 5 nin yacni markaa mar walba guursadaa waxba dhali waayo aan guursadaa waxba dhali waayo waaban iska daayey markaa kadib waa iska shaqaysan jiray guurkiiba waan iska daayay maadaama aanan waxba dhalaynin inaan dhalayna u guursanayay waaban iska joojiyeyba inanka yar markaan soo korsaday aan guursadayna waxaan is idhi de kolleyba isagaaba kula joogo oo inan yare iska guurso oo meherada siduu iigu hayo oo aamina oo kaale araga maasha allaaya kolleyba dhali maysidee berrina wuu iska tegayaa haddaa iska tago uur baan yeeshay uurkii markaan meelaha 6 bilood marinayay baan ku yidhi uur baan leeyahay wuxuu igu yidhi uur baad leedahay haa aniga hay odhan dee maaragtay hooyadii ha ii sheegina uur baan wiilkaaga u leeyahay ku odhan waa ceebe sidaa ku dhahay haa muxuu ku yidhi hooyo hee hooyadii waan ka baqanayaaye uur baan leeyahay ku odhanin oo wiilkan baa iga dhalay ha odhanin adiga markaa hooyo ku dhahaa soo maaha may hooye ma dhahee imika waxaan ku yidhi wuu soo indha adkaadayo miyaynan seexanan buu igu yidhaahdaa moogta fiidki isaga gacanta ku qabtaba haa meherada deg buu soo xidha marka anigu gelinka dambaa meherada ugu tagaayo aan maaragtay 2 shaqaalena way joogaan isagu mas-uul buu ka yahayo maaragtay dadku lacagta ka qabtaa kaashiyar weeyaan hooyo ina mariba ku dhahaa isaguna marka fiidkii markay tahay wax walba uu isagoo sii diyaariyo lacagtii sii xidxidhayo adduunkii oo xisaabtii dhakasi siiyey oo shaqaalayaashii kala diray baan u taga oo maaba xidxidhaysaa haa ina mari sidii markaan suuqa joogno markaa wuxuu igu dhahaa hooyo laakiin markaan guriga joogno iguma yidhaahdo markaa suuqa joogtaan muxuu ku dhahaa hooyo buu igu yidhaahdaa markaan suuqa joogno gurigana xabiibi buu dhahaa markuu doono xabiibi ceeblaag haye marka waxaa dhacday inaan maaragtay inanka yaraa uurka u yeeshay aan halkii uu igu qabay muddadaasoo dhan
ilmihii markaan dhalay kadib oo aabahayna markaa waa og yahay aabahay markaa inanka yaraan haysto weeye ma odhanine waan guursaday uur baan leeyahay aabahay halkaa ducug saa uga soo miisaya waxaan dhalay bahal wiiloo isaga un laga soo jeexayo adyaabis quruxda aad indhaha lagu hayn karin ilmaha aan dhalay inanka yaraa waxaan ku yidhi hadeerto sheekadan waa inaan sheegnaa waa ka yidhi waaya hooyada adigu la hadal adigu u sheeg baan ku yidhi hooyadii wuu wacay ana waa ag fadhiyaa hooy salaamu calaykum calaykum asalaam hooy arrin baan rabaa inaan kuu sheego haye hooyoy gabadhan ii haysay ee aad ii keentay ee intaasoo sanay soo haysay waan guursaday haddaan guursadayna uur bay yeelatay hadday uurka yeelatayna way dhashay wiil bayna ii haysaa hooyaday waxay ku leedahay maadaa wax dhalay yacni hooyaday anoo yar bay iga soo tagtay oo dee weli halkii unbaan u taaganayada haa hooyo maadaa wax dhalay maxaa ku helay ma hubtaa haa hooyo anaa huba intaasoo sana la noolaa gabadha la noolaa intaasoo sanay soo korinaysay weligeed kumaan arag wax xumaataa weligeed nin u soo gelaya maan arag maaragtay waa is-shukaansanay way iga heshay xataa xaaraan uguma tegina waa guursaday marka dee hooyo saa ula soco wiilkaa yar ee la dhalay waa wiilkayga waa kuu soo sawiraya xataa waana halkaa soo taagan hooyo waxay ku tiri hooyo beri gala markaa jaamacadda maad aragtay aad tegtid ma aragtay isoo wax khayr allaha ku siiyeen markaa way iska dareemaysa inaan ag fadhiyo de anigu aan soo diray beri dolo jaamacadda markaad tegtid isoo wax hooyo hooyadii buu wacay jaamacaddii buu tegey wuu wacay waxay ku tiri idhagayso anigu waa ku aaminayaa waxaan aadi tiri laakiin dacwaddii baan kuu bilaabayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaa soo baxdid baan rabaa waxaan islahaa wiilkaagu ha weynaado jaamacaddiisa iska dhigto waxbarashadiisa halkaa iska wato xoogay markuu weynaado maaragtay maskaxdiisu maasha allah noqoto aad soo kaxaysid laakiin haddaad arrintan aad samayso hooyo wax meeshaan kuugu sii haya ma laha hana taabanin mar dambe iska ilaali waa ku kaxaynaya waayahay baan idhaahday iyadii baan u imi hooyo way kaxaynaysaa waa caadi waxay tiri anigu marka anigu waxaan ku qanacsanahay inaa maaragtay dee aan ilmo dhalay maadaaman intaas oo sano aana soo dhalin waxaan ay ka sheekaysanayaan iyo waxaanba anigu danka melihi markaa ilmahayga yar baa masaa u daawanaya wuu tegay inankii adigu 6 bilood gudahood baa wixiiba loogu hagaajiyey maraykan buu ka degay ninkaagi haa aad korsatay haa maraykan markuu saa uga degay warqadii ordisaa lai soo dira warqadii ordis haddii lai soo diray damba kamaan yeelan maaragtay waxaan sameeyey muhiimaddu waa ilaahay ilma iga siiyey noloshaydii baan iska watay inankaygi baan korsaday 7 sano kadib may 12 sano kadib inankaygii oo 13 jir ah bartii isaga la igu keenay in leeg ayuu soo degay 12 sano kadib ayuu soo degay da'dii isaga lagu keenay isagoo leeg haa waqtigii isaga la ii keenay isagoo leeg ayuu soo degay oo inta uu dhar leekaa leeg oo sidaan u koriyey si ka fiican aan usii koriyey sidaan axdii u koriyey si ka fiican baan u koriyey halkiibaa maxaan ku yidhi aan soo dhaweeyey si qurux badan baan u soo dhaweeyey kaale iska arag marka anigu nin baan guursaday markuu ilaayo inankaygu jiray 7 sano aduma kama fadhiisatidba miya anigu ma fadhiisto anigan dee ilmo yar isku dhadhamiyo aan isleeyahay baa intaasu mid kale kaa dhalaa iska guurso ani carruur ba u waashay sideeda bannaanba mar haddaadan dhalin aad dhowr jeer guursatana maaragtay waxoogay stress baa kugu dhacay waxaad isleedahay bal bedelo un bedelo nin baan guursaday nin ila shaqeeyo kaale araga waxaa dhacday inuu ninkii soo degay
12 sano kadib inankayga dhalay ila soo xiriiro lacagta wuu soo diri jiray maxaan ku raada biilkiisa maalintuu sidaa shaqo u bilaabay biilku u qoray wuu soo diraa ilaa hadda waa soo degay waxaan ku yiri wax kasta ayaan si aan qof bini'aadan loo soo dhaweyn baan soo dhaweeyay hotel buu ku soo degay hotelkii markuu habeenkii iska seexday wuu isoo wacay aroortii wuxuu yiri galabtan idin imaanaya galabtadii ayuu maaragtay ii imaaday aniga oo miiska ayuu nooc cuntooy cashooy waafey yacni wax walba oo galab la cunayo wax walba oo casho la cuno halkaa ku diyaariyey wiilkiisi yaraa uu u eegyahay aad yaabasid inankii halkaasuu nooga soo galay inankii yaraa isaga waa isku dhigan habbaysa siiyeen cabaar baa laysku haystay aniga halkaa madaxaa buu iga dhunkaday wuxuu igu yidhi waa mahadsan tahay maaragtay dee ilmahaaga si aad u korsatay anigana iigu korsay maaragtay aadaa u mahadsan tahay haddeerna maraykanka markuu tegay kuma dacwey miyaa ima dacweyn suu ii dacweeya waa korsatee waa sheekaysan doonaa sug oo kuu soo wadaaye sheeka way dambaysaa dheh haa haye waxaan ku idhi anigu meheradii baan tegayaa inankaageer la sheekayso maaragtay hadhow meherada igu keenkaxayso suuqa lasoo marmar israaca anigu markaa xoogay waxaan rabaa wixii aniga iga dambeeyey inaan ogaado aniga nin baa qaba iminka uma baahni isaga jacaylna kuma guursan laakiin xoogay waxaan rabaa wixii iga dambeeyey xaaladuhu la kulmay inaan ogaado oo dumarku way wareystaan meel ragga ka tegeen anigu waan damcay inaan wareysto waan jeclaystay ma aqaan dumarka adkaatay dumara ma wareysataanba waxaa dhacday waxay tiri haye meheradii baa maaragtay anoo dukaankayga iska dhex fadhiya ayaa maaragtay meel baa tegey oo lacagyo iyo waxba iska soo maaragtay xaafad kalen tegey gaarigaygaan ka haystay waxaan ku yidhi xilliga aad timaado maaragtay isoo wac oo meheradii baan joogaa dhe waayahay gabdhihii shaqaalihii baan ku yidhi ninka caynkaasaa ii imanaya maaragtay soo dhaweeya si qurux badan u soo dhaweeya qaybta dambe VIP da ku soo dhaweeya wakaas ana dadka marka madaxda waxay iga iibsanaya qayb dambe lagu dhaweeyayo dharkii alaabta waxa iibsanay xaggaas loogu geeya aniga ku si khaas igu soo dhaweeya deetana waxaa dhacday nin ay saaxiib yihiin buu soo kaxaystay nin xoogay weyna haye isagiyo inankiisa yaraaye nin weyn oo maaragtay saaxiib yihiin gabdhihii shaqaalihii ninkii weynaaye xoogayga lakabay la boodeenoo sida qaybta VIP da kusoo dhaweyneen babababababa isagiyo waxaan u imi kursi yaroo caaga ku fadhiyo iyo nin halkan iigu jira waa naxay markaa waxaa idhahday aawo inankan ku yidhi ii soo dhaweeya sooniga kuu soo dhaweynay soo gal waa kan waa kee nin kalaaba meesha ku jira ninkana muxuu ahaa dee miyaadan odhan inankayga aabihii baa imanaya ii soo dhaweeya wakaasu dee inankayga aabihii waa kan ma inanka yar wayba isleegyihiin barabbiyo wayba isleegyihiinba gabdhihii yaab qaar carara qaar qosqosla isagii waa qoslay anigii waa qoslay markii dambe okay gooni ula baxday markii dambe marka warkaasii sugayna markay gooni ula baxday gooni baa ula baxayo halkii yareed baan sharaabna loo keenayo maaragtay soo dhaweyntiisa anaaba u sameeyeyo waxaan ku haye faarax ii waran horta inankaaga maaragtay inuu kuu eegyahay haa horta inankaaga wakaa haddaad u timi inaad ka haysatana anigu waxba maan dhalin adigu ina yar baa tahay waa dhaldhalasaa horta ha iga kaxaysan cuqubaa kugu dhacsa dad iga kaxaysato may buu igu yidhi inaad kaxaysto ha ka yaabin ilaa maalinku isagu kaa tago yidhaahdo aabbu maraykan baa rabaa mooyaane lagama yaabo waa ku maasantaa bay tiri hay maxay iga dambeeyey kolley adigu imaad soo furine ma hooyay soo furtay haa buu yidhi hooyay igu tiri fur waxbaad baranaysaa ceeb weeye waxaasi waa maamo weyn wakaas laakiin buu yidhi waan guursaday haddaan guursaday gabadhii koowaad aan guursaday waan la joogi kari waaye
يعني wax sidii aad ila dhaqmi jirtay oo ila dhaqma ilaa hadeer ma hayo laba jeer baan guursaday labadii naagoodba waa furay maaragtay wax sidaadii oo kala ma hayo wax sidaadii u qurux badan oo si qurux badan wax igu sameeya ma hayo wax maaragtay kula nolol kula raaxaa ma hayo marka insha Allah ii soo ducee haddii alla ka dhigo waxaan rabaa inaan guursado waxaan rabaa gabadh adigoo kala oo maaragtay sidii suuxitaankii wuu xiisay ilaa nooc kale ma garanayna isagoo suuxayo dhiig lagu shubay soo tidhiig ها سوحيتانك وحيساي وحي سوحيه لا هدر عدو وان الله يقول عبد القادر ما قرت عف iyo balow baan iyo bahal gabara oo inan yara oo tooba baran oo Nairobi ku dhalatay ayaan dacwatay hotel ban isugu hooyay hotel ban isugu hooyay hotel fi abiyaan soo kareeyay wala adkaagu fogaay maxaa la ogaa xasuus baad gashay ma maqlaysaa walaalo xasuus bay ku jirtaa in Allah wa inna raaji'un wiilkii iyo gabadhii baan isku daray waa u guuriyay bahal hotel u soo kareeyay deetana hotelka markaan soo kareeyay baan maaragtay halkaasaan soo bixinina baan iri halkaasaan keega yar macmacaanka yar wax walba ugu geeya 7 cisho maalinka ay ahayd baan gurigeyga ku casuumay 7 cisho markaa gurigeyga isaga iyo xaaskiisa aan ku casuumay gaar baan ula baxayo haye ka waran baan iri wuxuu yiri waxaa bid moodaa inaad macalimad adigu u soo dhigtay haddaan ka hayaa ninkii gabadhaas waa hadeer qabaa anigu wiilkii waa u dhalay nolosha yar baa soo maray hadeer maamo weyn baan ahay 58 jir baan ahay waxaasa haddii aad adigu qudhaad aad soo dhawaanaysid